kow markii koowaad oo kalluunka badda laga soo saaro waa inaad horta nadaafadaada ilaalisaa gacmaha aad galoofiska gashataa baalkii oo hadda sankan ii xiran aad xirataa kadibna aad kalluunkii soo qabatid marka labaad waa inaad kalluunka horta caloosha ka saartaa sifo uusan u qurmin okay waaye san inuu maraa loo baahan yahay gudihiisa macnaha bakteeriyada ay ku kicinaysaa haddii caloosha looga tago bilmetel wuu qurmayaa shaygii ama wuxuu noqonayaa qays sidii Soomaalida u taqaano marka muhiimadiisa waxa waaye haddaa caloosha saas ooga saarto oo aad meedho caafimaadkiisa waa ku okay kadib fridge iyo waxaad markaas la damacsan tahay waa u adeegsan kartaa marka saddexaad waa inaad kalluunkii madaxa ka goysid jarjartid cusbo aad mariso kalluunkii waa ii nadiif hadda waxaan rabaa inaan cusbeeyo ama aan qalajiyo sifo uu kalluunka isbedel u samaynin cusbada waa inay shiidnaataa si ay kalluunka jirkiisa u gasho oo markaas uusan u qurmin naftirkiisa cayayaan kale uusan u gelin marka saasaan leeyahay kadibna hadda shaqadiisii waan u dhameeyey marka afaraad oo ugu dambayso waa in aad kalluunkii oo cusbaysan aad qaadid meel nadaafadeeda dhammaystiran tahay inaad saarto ood ku qalajisaa saan markaad u samayso 3 beri ayuu yaali karaa qoraxda 3 beri ka bacdi wuu ku qalalayaa meel alla meeshaad markaas ugu talagashay wuu ku marayaa asoo nadiif ah oo wixiisii dhan aad ilaalisay mar hadduu qalalo saad rabto aad u isticmaalan kartaa haddii aad dalka u iibgeynayso iyo haddaad dibadda u dhiibanayso laba waa okay intii loogu talagalay nadaafadiisa wixiisa dhan waa u dhammaystiran yihiin cusbadiisa wuu qabaa 3 maalmood wixii ka dambeeyana hadee waa meeshii la rabo uu geynaa uu tagayaa